tuleyl u soo kaco waxaa iga yaraaday culayskii xitaa haddaan maqlo anoo ligu dhaga hadlaayo niyadda waxaan ka dareemaa inuu yacni liileeyahay waxaa ku xigi doono maalin aad qayrkaa u sarreyn doontee oo aad ugu farxad badnaan doonto yacni kuwan hadda kugu dhaga hadlaayana mar bay khareeri doonaan oo ay jeeraa dareemi doonaan markaas saas yacni niyaddeyda la iga dhaho waxaan dareemaa ayay tiri farxad xitaa waxba ma helin markaas laakiin salaatuleyl baan tukadaa waan duceystaa oohintii marka waxay tiri aan barkinta ku ooyi jiray ee habeenkii aan kolba dhinac u jeedsan jiray waxaan u gadiyey inaan salaatuleylka ku ooyo oon ilaahay si niyad la u baryo waxay tiri wax badan kama soo wareegin salaatuleylkii inta aan waday waxaa la iga soo wacay oo aan helay shaqo aanan marka horeba ku fikiri jirin raadinteeda ayaa wuxuu ilaahay i haleeshiiyey inaan apply gareeyo oo aan codsado shaqadii ayaan helay shaqadii markaan helay waxaa la igu qaabilay inta yacni dadka ani igu horreeyay lagu qaadayo in ka yar shaqada waxay tiri waa kambani ay caddaan iska leeyihiin ayaa waxay tiri shaqo ka helay lacagtiisana waxay tiri waa lacag aad u fara badan oo qof yacni aniga da-dayda oo kale lacagtaas ma qaato dadka waaweyn oo yacni brofesorada lacagaha ay qaataan oo kale ayaa waxay tiri kambaniga laga siiyaa kaaga sii darana shaqada aan qabanayo waa shaqo fudud oo saacado kooban ah fasaxana waxay tiri waxaan u heli karaa sida aan aniga u rabo yacni wax qasab ah oo inaan maanta dhan iyo caawa dhan meel fadhiya ma ahan waa shaqo kooban oo yacni saacado yar ku eg haddii aan fasax u baahdoon codsadana waxay tiri isla markii waa la isiinayaa mararka qaar waxay tiri anoo gurigeyga iska joogaan shaqeeyaa shaqadana waxay tiri wax aad u fudud ayaan qabtaa lacagteedana ma malayn kartid waxaa rumowday ayay tiri wixii markay igu dhaga hadlayaan niyadda la iga dhihi jiray waxaan dareemay waxaas wax uu ilaahay igu soo tuurayay inay ahaayeen kuwa igu dhaga hadli jiray maanta waxay tiri waxaad moodaa inay aniga ii shaqeeyaan oo kale yacni sida ii ixtiraamayaan sida ay fadhiga iiga kacayaan kaaga sii darane waxay tiri markii aan inaan guursado damcay waxaan waayay nin ii qalmo ninkii aan u baahnaa iyo shuruudii aan watay waan waayay laakiin hadda waxay tiri 3 bay tirada ku gaarayaan yacni waa 3 nin 3daba waxay leeyihiin ayay tiri shuruudii aniga aan watay way wada fiican yihiin mid kasta waxaan dhahaa bay tiri waan kala garan waayaa mid